أنا مقعد وصلنا مرتبة حوي علي سعيد يوسف dhibaatada taribta da kaga sheekeeyo dhibaatada taribta waa mid adag horta dhalinyaro badan aan la socon horta meesha way ku dhinteen waxna badda ayay ku dhinteen magafuuna uma naxariisto dhalinyarada Soomaaliyeed waa ku bahdilaa gabdhahana waa ku kubsadaa horta wixii igu yaab badnaa waxa weeye gabar walaashay oo agteeda lagu kubsaday aan wax u qaban karaa dhibaato badan ayay leedahay taribtu ninkii needa ku hayana ka sii daayay tahrib magacayga Ciid Xasan Axmed baan yiraahdaa aad baan horta ugu faraxsanahay anigoo maanta dhulkayga hooyo xurriyad ku haysta oo si fiican loo soo dhaweeyay aad baan horta dawladda Soomaaliya iyo dawladda Puntland ugu mahadsanyihiin marka alxamdulillah wayaan horta muddo badan baan maqnaa oo sanad iyo 8 bilood ah ayaan Liibiya ugu joogay Liibiya waxyaabo badan baan kala kulmay tooga badan Liibiya waxyaabaha ugu dhibka badan la waxa weeyaan ganacsiga bini'aadanka sida bini'aadanka ayaa waxa uga ganacsataa xoolaha sida looga ganacsaday bini'aadanka uga ganacsataa iyo jirdil aad u xun iyo kubsiga iyo waxyaabo dhibaatooyin fara badan bay Liibiya leedahay sida laaligeed waxyaabaha Liibiya ugu dhibaatada badan la waxa weeyaan horta dhimashada sida xaqdarrada qofka bini'aadanka lagu dilayo ee wuxuuna galabsan jirin ee la iska dilayo midda wax horta tii ugu la yaabka badneed waxa ahayd anigoo habeenada kamid ah waxa dhintay wiil saaxiibkay dhab ah oo isla soo taribnay baagteeda ku dhintay fursad waxa la siin waayay aan u daryeelo meedkiisa ama meel aan ku aaso yaa la siin waayay midda labaad horta waxyaabaha waxa jirta anigu horta laba meelood meel baa lagu geenaya lacag baa laga qaadanaya ka bacdi waxa la leeyahay hayaan lacagta waan ka dhameystay tuu kala lagu ballamina meel kale lagu geenaya anu horta dhowr meelood baa lacag laga soo qaatay waana la jirdilay suxna waa la galay haddana alxamdulillah baan leeyahay maanta xurriyad baan iska haystaa magacaygu Cabdiqaadir Ismaaciil muddo wadanka runtii waa ka maqnaa dhibaatada tan dhalinyaradu sheegtana oo iskaga mid baan runtii ka ahayn laakiin mid aan anigu dheerahay waa jirtay runtii anigu 3 jeer badda waa galay runtii aad baan ugu faraxsanahay tarankayga inaan wadankayga joogo maanta muddo 2 sano ah hooyaday maan arag dhowr jeer waxa la sheegay inay xanuunsan tahay midda aan dheerahay dhalinyarada badda 3 jeer baan galay 200 iyo 11 qof baa waxaan kaga soo badbaadnay 9 qof oo kaliya runtii dareenkayga ma jecli inaan macnihii aad dib u xasuusto ama aan macnihii aad u xasuusto gadaal u noqdo macnihii 3 Soomaaliya baan ku ahayn 3 dhalinyaro oo Soomaaliya 202 qofna halkaas ayay ku dhimatay oo ila socotay nin waa isku dayay inuu qabsado oo Cameroon iga xog weyn aad buu ii ceejiyay waa iga xog weynaa inkastoo aan qaniyo iskaga fujiyay markii dambe jaakad buu arkay jaakad dabaasha wuxuu damcay inuu igala baxo runtii dareenkayga ma ah midaan si dhammaystiri karo aad baan u mahadsantihiin